السلام عليكم ورحمة الله وعبد الرحمن مركله sida aan horeyba idinkugu ballan qaaday maanta waxaan idinla wadaagi doonaa macluumaad aad u muhiim ah oo ku saabsan course kuu fududeynaya u diyaargarowga imtixaanka jinsiyadda Canada. waxaa soo gabagaboobay diyaarinta casharo online ah kuwaas oo ku baxaya luqadda Englishka iyo Soomaaliga. casharadan waxaa loo diyaariyay qaab kuu fududeynaya inaad u diyaargarowdo imtixaanka. macluumaadka casharada ku jira dhammaantood waxaa laga soo qaatay buugga Discover Canada. macluumaadkaas oo dabooli doona dhammaan cutubyada uu buugga ka kooban yahay. haddaba haddii aad geli rabtay imtixaan ama aad gashayba laakiin aadan ku gudbin, ama aad tahay qof interview loo ballamiyay oo walaacsan, ama aad tahay qof xereystay jinsiyadda rabana inuu sii diyaar garoobo, ama aad tahay qof doonaya inuu wax ka barto shuruucda iyo taariikhda waddanka Canada, waxaan kuugu bishaareynayaa inuu course-kii hadda diyaar ku yahay oo aad heli karto saacad kasta, haddii aad Canada joogtid iyo haddii aad dibadda uga maqan tahayba. haddaba xagee ayaa laga heli karaa course-ka? course-ka waxaad ka heli kartaa website-ka cinwaankiisu yahay abdush.thinkific.com. haddaba aan idin tusiyo course-ka gudaha sida uu eg yahay iyo qofka sida uu iibsan karo iyo waxyaabaha ku jira. marka halkan markaan soo galo طبعا waxaad arki kartaan halkan dhammaan chapterada meesha ku jiro. طبعا badankiina sida aad ka warqabtaan buuggan wuxuu ka kooban yahay 10 chapter laakiin 12 video sababtoo ah 2 chapter oo dheer ayaan maxaan ku iraahdaa u kala qaaday 2 qaybood. markuu qofka soo galo waxaad ku dhufanaysaa tusaale ahaan chapter 2 kaba soo qaadba inaad doonayso inaad daawato, waad ku dhufanaysaa markaas aad daawanaysaa. maralaale markaad dhameyso chapterka waxaad u gudbaysaa qaybta su'aalaha. su'aalaha markaad u soo gudubtid su'aalaha waad ka shaqeynaysaa. طبعا sababta su'aasha aan u sidgariyay wax weeyaan in qofka uu tijaabiyo macluumaadkiisa asoo fursad u helayo mar walba chapter kasta inuu eego sida uu wax u fahmay. marka wuxuu leeyahay uu ku sidgareysan yahay systemka in maxaan ku raahdaa qofka uu ku baasi karo 80% haddii uu keeno iyo wixii ka badan. wixii 80% ka yarna waxay noqonaysaa in uu imtixaankii ku celiyo. haddii aad baasto hore uga gudub, kan labaad u gudub. haddii aad dhacdana wax dhiba ma lahan, waad haysataa maxaan ku iraahdaa videoga dib ayaad u daawanaysaa. haddii aad maxaan ku iraahdaa aadan mar kala baasinna waad ku cishan kartaa. haddii aad baastayna waad ka gudbi kartaa oo qaybta kale ayaad u gudbi kartaa. marka taas waa tusaale ahaan hal cutub. cutubyadoo dhanna waa sidaas oo kale kulligood waxaad arkaysaa in maxaan ku iraahdaa ay su'aalo la wada socdaan. sida aad aragtaanba qaybta ugu dambeysa waxaa ku yaala review questions. marka waxaad tijaabinaysaa macluumaadkaaga guud ee ku saabsan cutubyada oo dhan. marka su'aalo kale ayaa ku jiro oo su'aalo si wanaagsan loo soo diyaariyay ah. su'aalihii ayaad ka jawaabaysaa. meeshasna waxaad ku garan doontaa haddii maxaan ku iraahdaa macluumaadkaaga ay wanaagsan yihiin iyo haddii kale. haddii aan macluumaad kale oo yar idinka siiyo qofka hadduu iibsado 365 maalin ayuu accountkaas u shaqeynayaa ama sanad ayuu u shaqeynayaa. haddaba sidee loo iibsan karaa? waxaad soo galaysaa website-kan, waxaad ku qoraysaa abdush.thinkific.com. kadibna waxaa kuu soo baxaya page ayaa kuu soo baxaya oo saan ah. pagekaas ayaad galaysaa. kadib haddii aad doonayso inaad aragto waxa ku jiro course-ka halkan ayaad ka arkaysaa 24 cashar 5 video. 24kaas waxa ku jira su'aalihii kulli cutubyadii oo dhan waa kuwana. kadib haddii aad ku qanacdo inaad iibsato halkan ayaad soo galaysaa, buy ayaad ku dhufanaysaa. markaad buy ku dhufato emailkaaga halkaas ku qoraysaa, email kuu shaqeynayo oo access u leedahay. waxaad ku qoraysaa first name-kaaga, last name-kaaga sida uu kaarkaaga ugu qoran yahay. kadibna halkan waxaad gelinaysaa card number-ka, bisha uu dhacayo, sanadka uu dhacayo. CVC-gana waa numberka dhabarka uga qoran maxaan ku iraahdaa visa ama credit card-ka. kadibna complete purchase ayaad leedahay. markaad complete purchase aad tirahdid isla markii waxa kuu soo dhacaya emailkaasna wuxuu kuu suuragelinayaa in aad gudaha u gasho website-ka.
sidaan horeyba idinkugu sheegay koorskan waxaan u diyaariyey qof kasta oo Soomaaliya oo Canada ku nool oo u diyaar garoobaya imtixaanka jinsiyadda Canada. qofka haddii uu safar yahay wadanka ka maqan yahay wuu isticmaali karaa, haddii uu wadanka joogo uu mashquul yahay waqti allaale waqtigii uu waqti haya ayuu uu maaragtay dhageysan karaa ama uu baran karaa. sidoo kale waxaa xusid mudan in qofka uusan ku qasbanayn inuu isticmaalo computer keliya, wuxuu ku shaqeyn doonaa computer, laptop, iPad iyo mobile-kaaga intaba. haddaba waxaan idin rajeynayaa in aad adinka iyo qof kasta oo Soomaaliya oo Canada ku nool inuu ka faa'iideysto insha Allah tacaala. la qaybsada, la share gareeya walaalihiina wixii maaragtay macluumaad ah ama wixii caawinaad kale aad u baahataanna waxaad nagala socon kartaan macluumaadkan shaashada ku qoran, ayaad nagala soo xiriiri kartaan emailkeena, facebooka iyo website-ka intaba. waad mahadsantiin. Assalaamu calaykum.